السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد ayaan idin wada salaamayaa saaxiibadeyda quruxda badan ee sharafta leh sidee leeyahay ma la wanaagsan yahay ma la wacan yahay insha Allah ma ku dheeraanayo halkan waxaan rabaa insha Allah messenger inaan ku soo gudbiyo message-kaas magaciisa la dhaho anigu macaayin walaashay Naciima Ducaale message-kaas ayaan idin soo gudbinayaa waana wax yar oo 5 minutes waxaa jirta maalin dhexdaas ahayd inay Naciima ka hadashay arrin ay iga cabanayso inaa maartay message caayo oo ka caaya meelo badan annagii Naciima waa iswacnay waana wacay waxaan weydiiyay walaashay xagee kugu caayay xagee igu aragtay Naciima adigu si kasta arrinta ahaato waanu heshiinay waana walaashay markay aan yacni heshiinay aniga runtii waanu sheegay waan ku cudur daarayaa baan ku dhahay walaalo yacni dadka bilaadanka waxba ismoodsiiyaan badanaana ma jeclid qofka inaan dhaho waay maxaa saaytir ma jecli walaashii su'aal baan weydiiyay waxaan dhahay walaal halkaan kugu caayay xagee kugu arkay haddii aad aragtid baan ku yiri meel aan message caayay aad leedahay aan ku qorayo ii soo sheeg maartay intaydaas madaxaygan xabaan ku dhiganayaa waana ka garbaxaya adigu calaa kulli xal waan heshiinay waxa dhacday in haddana laba gabdhood oo kala duwan soo wacaan maxaad inaad eertaan Naciima wacayda waa iska dhaafay haddana laana wixii waa ka heshiinay gabdhii waa qanciyay xalay waxay soo wacday gabadh ay Naciima family hoose yihiin waxay igu tiri maxaa inaad eerkaadu cayday waliba ana hurdo inta saqdi dhaxay soo kicisay maxaad u cayday inaad eertaa video baan soo daawaday Naciima leedahay sabab waa Naciima u cayday maxaa ku geeyay inaad eertaa runtii iyadu waxay u dhaqmaysay sidii qofna dhexdhexaadinaya laakiin aan waxaan arkay in Naciima inaad eertay tahay sidaa daraadeed waxaan go'aansaday anagoo ka heshiinay inaan videoga soo duubo walaalahayga Soomaaliyeed qof kastoo videoga soo daawada Naciima Ducaale haddaad aragtaan meelaan walaashii ku caayay oo message ku qoray madaxayga intaas soonti malahayn baan idin dhiganayaa meelaha ay Naciima iga cabatay iyadana waa ku dhahay idinkana waa idin sheegayaa waxa kamid ah dumar la'aan bay tiri koox dumar la'aan bay ka hadlaysay oo gabadhay markay saysteen ay ku soo halqabsanaysay Naciima waxay tiri dumar la'aan bay tiri naagtaas waa naagta ugu message qorista badan waxaan ilaahay la hortagayaa Naciimana oo cadeeyay ummadda islaamkana oo cadeynaya qofka arka anigu macaayin ma aqaani dumar la'aan waxaan ka maqlay Naciimana waa sheegay idinkana waa idin sheegay dhowr qof waxaan ka maqlay Naciima Ducaale maama Milyuun Naciima Brinki Xamdi Kalgacal iyo wiilka la dhaho Daacishow bariyo dhowtay leesaystay baan maqlay baan waliba aad u maqlay dumar la'aan raadi baan isriniyadayda haddana waxaan si maadaama khayr laga sheegay iska badaa ilaa hadda waxay yihiin ma dumar khayr sameeya ma dumar shar sameeya ma aqaani wixii laga sheegayna ma dhahayo waa jiraan laana anigu aqoon ma lihi mana aqaani mana rabo inaan barto yacni waxay ugu filan bulshada intii ka sheegaysay yacni waxaana jirta waxyaalo markaad maqashadaas aad soo xaqiiji ma aan raadinin laba wax maanta anigu shaqo kuma lihi ma aqaani waxa la dhaho dumar la'aan gabdhaha la dhaho mana aqaani aalada TikTok tala dadku isticmaalo labadaas ilaahay qudradiisa ma aqaani wax iga caajiyay marka sidaa daraadeeda walaashay Naciima waa isfahanay waa iscafinay ereyga aan maanta idin leeyahay ku yiri haddaad aragtid meel aan kugu caayo ii soo sheeg screenshot iga soo qaad intaydaas oo aan timalahayn madaxayga santimalahayn baan ku dhiganayaa calaa kulli xaal waa isku afkaranay waxaan se jeclaystay maadaama wixii aan iskala kala heshinay inay videoga intii ka jarto ay aniga iga hadlaysay wuu joogaa qofkii soo arkaa wuxuu dhahayaa maxaad Naciima u cayday haddaba anigu walaashay ma caayin mana caaynayo qof kalena ma caayo message haddaan meel ku qoro oo wax markaa aan la yaabo aan ka hadlo dib intaan ugu noqdaan soo dhiliidaa la'aana waxaan sadaa wariyaan dambi ka raacin waxa ugu badan aan dadka u qoraan waxaan dhahaa walaal isla yaab ilaahay ka baq qof baan dadka u qoraa haddaan wuxuu qorayo haddii kalena ma qoro haddii laakiin markaas aan wax opinionkayga ka hadlo qofka kan aan la yaabo wuxuu ka hadlayo haddii hadalkaygaan in yar xanaf ka dareemo anaa dib intaan isugu noqdo soo tirtiro la'aana ma rabo inuu maalinta qiyaamo uu markhaati messagekaasi igu noqdo dambiyadeeda igu cusleeya ma rabo wax yar oo cidiya oo qof dhibaya ma jecli inaan sameeyo inta jeer aan ka hadlay Soomaali dhexdeeda wax ka hadlayna waa waxaan isdhahay ilaahay dartisaado hadash waxaan hadaad isu leedahay dhexdhexaad bad ka noqotay ama qof dal dulmiya tiro qofka dulmi ka daaya ma aha ceeb ma unless aadan wax dambiya sameynaynin marka hadalka waxaan ku soo koobay anigu walaashay waanu heshiinay laakiin waxaan hadda u soo duubay dadkii bay deyn waayeen maxaad gabadha u cayday maxaad gabadha u sameysay maxaad gabadha saan u yeeshay qof kasto Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii in case saas kale arrin u dhacdo wax kasta dhici kara walaalayaal ka hadlo waxa tadan war waxaan ugu ma sameyn hadii maanta lagu soo dacweeyo maxkamad oo aadan dambi lahayn is nadiifi hadii kale record kaagu xumeynaya message kaasi
ama dacwadaasi markaas nadiifiya calaaya kulli xaal waxaan kusoo koobaya masajkayga gaaban walaashay ma caayin mana caynayo qof kalena ma caayayo gabar Soomaaliyeedna ma caayo biidmillaahi raxmaan wiil Soomaaliyeed marka insha Allah biidmillaahi raxmaan anigu qof Soomaaliyeed ama qof Islaameed ama qof ummadda kale aan xitaa islaamka ahayn ma caayayo gardarana qofka kuma doonto maxay heetoy walaashay meel ay cid lagu caayana ma arkinin mana caayi doono gabar Soomaaliyeedna ma caayin haddana waxaan wallaahi maan jeclan 2 isbuuc ka hor bay ahayd waxaan cadhooday xalay markay gabadh Naciimo waliba jiraaskeeda intay soo wacday igu tiri maxaa ku geeyeen adeerta horena kuwa ii soo dhaheen oo ilaa xitaa comment meel la igu soo qoray walaalayaal anigu xadgudubka ma jecli gardaradana ma jecli qof anna in la igu xadgudbo ma jecli si kasta wax waa u dhici karaan si kasta yani qofka bilaadanka waxa uu moodsiin karaa laakiin haddana waxa xun maaragtay maanta oo lagu soo dhugro waxa u sameys waxaan sameynay qof weyn baan waa sogahay gardariya xadgudub cidna ku doonan maayo nafteedana kama ogolaanayo biidmillaahi raxmaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh